الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي طبناد يا كتاب كان تحفة المودود عن أحكام المولود لابن القيم رحمه الله. waxaan soo gaarnay baabkii toddobaad dhexdiisaan ku jirnay masalada xalqu shacarihi watasaduqu biwasni shacarihi, yacni in ilmaha markay dhashaan madaxa laga xiiro, timahaasna in la miisaamo, miisaankaas intuu noqdo oo dahab ama fida ana la bixiyo, yacni sadaqa lacaga la dhiibo. taas maxaa ka jiro oo kusoo arooray? in la xiiro ilmaha madaxiisa waa sunne, waana xadiidkii rasuulka hore aan usoo maraynay, xadiidkii caqiiqada ka hadlayay oo inuu rahan ay u tahay in laga caqiiqeeyo la rabo. waxaa ku jiray wayuxlaqu ra'su, waxaa la xiirayaa madaxiisa, waana magacna waa loo bixinayaa, waana xadiid saxiix ah. haddaba gabadha ma la xiirayaa? sida raajixa maya. waxuu ku soo arooray xadiidku waa wiilka, marka gabadha iyada la xiiri maayo, kuma jirto sunnada laleeyahay laga xiira timaha. faatima radiallahu canha, rasuulku wuxuu amray inay xiirto madaxa wiilkeedii xasan, riwaayada qaarna xuseenna way ku daraysaa, madaxa inay ka xiirto kadibna ay bixiso miisaanto. miisaankaas wuxuu noqdo oo dirham, waa fidada waxa la yidhaahdo, ama qalinka aanu naqaano, lacagtaana la dhiibo. haddii dahab ahaan la bixiyana way bannaan tahay, way miisaantaa layidhaha. faatima waxay noqotay 1 dirham ama dirham bar ah, waana xadiid sheekh alalbani oo xasan uu ka dhigay. haddaba waxaa sunno ah sidaa in maalinta toddobaad arintaa iyada ana la sameeyo, oo qofku maalintaas iyada uu sameeyo. waxaa la bixini marka waa timaha marka la xiiro waa wax aada u yar. ilmaha markay dhashaan waad aragteen timihiisu aad ba u yaryihiin. waxyaabaha lagu xiirto unbaa lagu xiirayaa beli, hadday makiinad tahay iyo hadday tahay sakiin iyo wixii un lagu xiiri karo ayaa lagu xiirayaa. kadibna miisaan baa la saarayaa, wixii ay miisaanka ka noqoto ayaa suuqa waxay uga dhiganto qiimaheeda oo sadaqa ah baa la bixinayaa. hadda waxaa suuragala inagu dee dahab iyo fidatoona inayna markaa haynin, marka intaa qiimaheedii markii loo fiiriyo fidadii lagu miisaamo meeqay ka joogtaa la yidhaahdo, wax weyn ma aha, waa wax aada u yar, laakiin sunnadaas si loo oofiyo in la bixiyo weeye hawshaas iyada ah. a'imada 3 ka mid ah, imaamu shaafici iyo imaamu axmed iyo imaamu maalik ba waxay isku raaceen inay tahay arrintaasi sunno in la xiiro, sadaqadana la bixiyo. laakiin iyado dahabna waa suuragal bay yidhaahdeen, fidada ayaa habboon, dahab in lagu bixiyana waa suuragal. umuurtaasi waxay dhacaysana waa maalinta toddobaad ayay dhacaysaa. waxaa la hormarin bay leeyihiin dabxiga, oo ah in neefka la qalo, kadibna maaragtay waa tii waxay kaga duwan tahay sida carafadii oo kale. tan yubda-u bilxalqi dhe, waxaa lagu bilaabay iyada xiirida la hormarinayaa, gowracana waa la dambeysiinayaa. laakiin waxay ka duwan tahay tii carafada oo kale. waxaa kaloo masale meesha ku jirta ah, madaxa marka la yidhaha hala xiiro, intee la xiirayaa? ma qeyb baa la xiirayaa? maya, madaxoo dhan waa in la xiiro. waa nahyi baa kusoo arooray xadiid saxiixa saxiixeynka ku sugan. rasuulku wuxuu diiday alqazac, waxaa la yidhaha qazacu waa jeega xiir baynu inagu odhan jirnay, laakiin si guud marka la yidhaahdo qazacu waa xalqu bacdu ra'si wa tarku bacdi, yacni waa madaxa, timihii madaxa in qeyb la xiiro qeybna laga tago, taa lama ogola. 4 arrimood baana halkaas soo geli baa la yidhaahdaayo, in madaxa la xiiro meelo ka mid ah, meelana la daayo. marka taasi waa qazac. qazacuna waxaa laga soo qaatay asalkeeda ma'khuud, daruuruhu markay inba meel joogto oy kala tagtagsan yihiin ayaa laga soo qaatay. marka in meelana la xiiro meelana la daayo ma banaano. waxaa kaloo banaanayn in madaxa dhexdiisa la xiiro dhinacyadana laga tago. waxaa kaloo banaanayn in dhinacyada la xiiro dhexdana laga tago, waa sidii inagu aynu u xiiri jirnay oo
dhowr wixii la odhan jiray dhowrka loo sameyn jiray, gaar ahaan gabdhaha iyo qaabka loogu sameyn jiray in dhinacyada laga soo xiro, qeybta dhexe la daayo. Iyo waxaa kaloo in muqadimada qeybta hore la xiiro oo qeybta dambe la daayo. kullu hada min alqazac, waxay kamid tahay qazicii la diiday. wallahu aclam, waana kalaamkii ibn lqayim raximahullah.